بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد ومركلة iyo casharadeenii taxanaha ee Microsoft Word 2021 okay lesson-kan waa lesson-keeni sideedaad baan filayaa waxaan kusoo qaadan doonaa inagii soo qaadanay home tab-kan ribbon-iska hoos yimaada oo qaybahan sida maxaan dhahay farta bold looga dhigo italic hoosta looga xariiqo farta loo waaweynaysiiyo font type-ka nooca rabto paragraphiska sida alignment-iga centerka loo align gareeyo qaabka maxaan dhahay loogu sameeyo bullets numbers qaabka wax loo sort gareeyo indent outdent waan soo aragnay oo indent iyo outdent maxay ahaayeen haddii matalan imika aynan kuu qornayn matalan kuwan oo kale aan matalan dib u soo celiyo okay haye intaad saa usoo share garayso oo inagii samayn jirnay inaan indent gelino haye outdentina kasoo saaritaanka sortigana waa inay xarfaha si iskugu xigaan waa inagii intaa kasoo baxnay marka maanta waxaynu bilaabi doonaa intaynan inserti ama tabkan cusub waxyaabaha ku jira aynaan bilaabin waxaynu arki doonaa intii aynu maalmahan samaynay in dib u yara muraajaceynayna yani warqad oo kale matalan haddii aad ogeysiis rabto oo Microsoft Word muxuu kaa saacidayaa inaad qori karto warqad aad saaxiibka u qori karto ama qof aad u qori karto codsiya inaad qori karto warqadaha dacwada haddaad dacwad oo kale aad leedahay maxaan dhahay maxkamada u gudbinaysid inaad ku qori karto CV-gaaga warqadda maxaan dhahay shaqo codsashada marka waxyaabo badan marka intii aad baratay imika waa in kaa saacidi karta in aad yani aad wax aad warqad yani dalab aad rabto inaad ku gudbisto aad ku samaysan karayso marka waxaan rabaa file cusub inaan furo filekaas waxaan ka furi file ama maxaan dhihi haddii ay maxaan dhahay shortcut-aan isticmaalo control iyo n keyboard-kaaga control shift n baad samayn ayaa taaban dabeedna document-igan buu kusoo saaray ama file sidii aanu garanaynay inaad new tiraahdo blank document uu kusoo saaro dabeedna aad saa ku waxaysto okay waxaynu qori doonaa warqad ah matalan inaan warqad qorno sidaan sheegnay warqad ama codsiya ama qof aad u qoraysid ama ogeysiisa matalan haddaad ogeysiis oo kale rabto inaad qorto maxaad samayn horta farta iska soo hagaaji farta aad isticmaalaysid marka koobaad for example Times New Roman haddii aynu ka wada dhigno wax walba aynu qorayno marka koobaad haddii aad imika intaad farta soo gelgeliso aad aayar qoraalkii bilowdo wax walba farta aad dooratay iyo numberka size-ka aad dooratay ay ku soconayaan haddii matalan imika oo kale xaggan ogeysiis intaan cables maxaan dhahay caps logo furto ama shift la qabto markaan qorayo aan ogeysiis qoro ogeysiiskan dabcan aan edit garayn doonaa intaan dhaho haddaan hoos usoo dego oo waxa dhammaan la ogeysiinayaa okay hadda waxaad aragtaa in aan qoray maxaan dhahay ogeysiis iclaam oo kale matalan oo haddii aan imika soo yaro ballaariyo oo soo yaro dhaweeyo waxaad aragtaa in aan qoray ogeysiis waxa dhammaan la ogeysiinaya bulshada ku nool xaafadda koowaad ee magaalada Jigjiga inay jirto muxaadaro ku saabsan dhaqanka suuban iyo xaqa jaarka waxaa si sharaf leh laydinka codsanaya inaad kasoo qayb gashaan muxaadaradaas matalan muxaadaradaas baad yani aad rabto inaad iclaankeedii bixiso intaa markaad qorto iyo wixii kale qoraaleed raacinayso oo matalan aad xaggan oo kale ku qorto goobta haye matalan intaad goobta intaad labada dhibcood aad taabato goobta haye already goobta xaggan aan kusoo xusnay laakiin haddana mar labaad si uu qofkii u arki karo masjidka haye huda taariikhda haye matalan labada bisha saddexaad 2024 okay intaad tiraahdo ogeysiiskaagiina intaa ku dhan yahay amaba qoraal kaleba uu jiro de matalan haddii matalan qoraallo kale aad qorqortid matalan imika intan oo kale haddaan intaan koobiyeysto aan iyada soo laba baasbaast garayn noogu badiyo muhiimaddu waa intaa kore yani qoraalkeeda aad u qoraysid matalan warqadan baa rabtaa inaad edit garayso waatan waxaad aragtaa warqadii inaad qortay yani qoraaladii aad rabtay inaad qortay editka waxaad taqaanaa inaad soo baratay alignment-iga sida centerka ogeysiiskan imika waxaad garanaysaa inuu maadaama ciwaan guud yahay oo ay tahay in la arko oo maxaan dhahay aragtida qofku markuu warqadii arko meel ku dhajisan soo uu akhrin karo ogeysiisku meel fog hadduu kasoo arko uu arki karo waxaad u baahantahay inaad kow xarfaheeda waaweynayso ood ka waaweynayso soo kuwii kaleeto matalan 14 ama 14 kaasoo kale ku daa haye in aan matalan ka dhigoo kale far kaleeto indhaha uga yararo tan kaleeto imika isticmaalay oo ahayd Algerian kan oo kale matalan ka dhig badanka waxaad aragtaa inaad
ogeysiisyada taa loo isticmaalo haye ogeysiiskan ma xaggaas buu ku fiican yahay meesha uu yaalo left buu yaalaa iminka dhinaca bidix buu yaalaa wuxuu ku habboon yahay inaad center ka dhigto ama dhexda haye centerka sidaad u dhigi soo hor istaag ama wada dooro dabadeedna tan dhexda istaag okay waxaad aragtaa in ay intaas tahay weliba farta haddaan doonaan ku darsano ama yare oo bold ka dhig okay bold inaad ka dhigto haddaad rabtana hoosta ka xariiq xariiqan aad isticmaalaysid isaga laftiisa waad madoobaysiin karaysaa haye waxaan dhammaan ogeysiinaynaa qoraalkana maxaa taqaanaa in ay qurux badan tahay inuu qoraalku hal meel ku dhammaado hadda waxaad aragtaa inuu kan xaggaas kaga dhamaanay kan xaggan iskaga dhamaanay taasi loo hagaajin jiray wada dooro haye waxaanu samayn jirnay inaad tan timaado waxaan jeedaa aaway tan aad timaado aad justify tiraado okay justify weliba waxaa naga raacay ogeysiiska isaga si gaaraan haddana ugu soo celinaa xaggiisa dhexdeeda hadda waxaad aragtaa qoraalku inuu sidaa noqday markii hore muxuu ahaa sidan buu ahaa haye siduu noqday sidan okay sidan baynu ka dhignay okay intaa waad aragtaa xaggan oo kale dood baad ugu dambaysiin xaggan waxaad aragtaa goobta masjidka ma inay xaggaas kaga qornaataa warqadaha badanka waxaad aragtay inaa meelaha lasoo dhigo oo dhinac gees lasoo dhigo geeska sidaad usoo dhigta waxaad taqaanaa alignmentigii inaad xaggan align right aad dhihi karto xaggan oo kale haye align right kana haye aad intiiba saa ku waxaysatay oo warqadaadiina dee waa wax weyn matalan warqadaada waxaa rabtaa inaad kusoo darto culimada kasoo qayb galaysa qornay matalan qoraalkaagii muxaadarad markaad xaggan iclaankii iyo wixii ay ka sheekeynaysa aad xaggan kusoo sheegtay xaggan waxaad rabtaa inaad dadkii aad u ilaamiso tiraado culimada noocana ama culimadii aan garanay culimadeena ahayd baa kasoo qayb galaysa culimadii xaggan oo kale ciwaan baad ku qortay ciwaankan waxaa muhiim isna inaad ka yara muujiso kuwa kaleeto waxaad samayn inaad boldi ka dhigto haddaad hoosta ka xariiqaysa ay ku cajabisana hoostaad ka xariiqi marka haddii aad hoosta maxaa dhahay si aad ku daynaysana waa sax sheekdiina waa kuwa sheekhdii oo kale matalan baad rabtaa inaad maxaan dhahay dee indent ama ku samayso ama list garayso bullets adoo isticmaalaya waxaad samayn kartaa waa kan sheekhyada imanaya waa kuwan baad dhihi bulletka nooceed rabtaad isticmaali haddaad rabtana sheekhda waxaad ku xusidee maxaan dhahay waka dii kalena waa kuwaas centerkaada haddaan doonto iskaga align garayn justify haddaan dhahno dhinacaasi ku fiican tahay ama xaggaa inay yaalaan okay sheekhda kasoo qayb galaya waa kuwa inta inaan ka bixin warqadan edit garaynteedii waxaas kow waxaan rabaa in aan ogaado spaceka u dhexdhexeeya labadii line ama labadii qoraal paragraphkeenu amaba qoraalkeenu ka kooban yahay iminka waxaan rabaa ka iyo ka inta u dhexeeya inaan ogaado haddaan xaggan soo galo 1.5 aan ka dhigo waa tab ugu munaasabsan ee laga dhigo marka warqado qoraysid sida wixii loo akhrin karo in hoosta iskaga gelin matalan iminka haddii iminka wanka iska hada waxaad aragtaa in yani indhaha inuu fiicnayn kan sidaas oo kale 1.5 standard kana uu aad buu waaweyn yahay warqadii oo kale inay wax badan ku qaadi weyda laga yaabo 1.5 ka buugaagta lagu qoro badanka xaggan sidaas lamida gebi wada dooro hadaad rabto waxaad samayn kartaa select all dheh haye dooro kan 1.5 ha wada dhexeeyo wax oo dhan haye waxaad aragtaa in ay wax walba sax yihiin hadda imika waxaad aragtaa inaad qoraalkaaga markaad imika warqadan haddaan print garayno in arkaynaa sida loo print gareeya casaankan iyo waxyaabaha noo soo saari maayo casaankan muxuu yahay maadaamuunan luuqadan uunan garanayn af soomaaliga wordku ingiriis garanayo matalan imika haddaan imika xaggan oo kale ku qoro erey englisha oo matalan oo kale word wuu garanayaa haddaan imika wordkaas si yaroo khaldan u qoro on rd qoro on ka boodo casaan buu soo saaray waxay ka dhigan tahay ereygan ama spelling ahaan buunan saxsanayn amaba luuqad ahaan wordku ma garanayo marka waxyaabahan oo kale haddii aadan jeclaysanayn inaad iska baabiiso oodan rabin inaad word ku dhex aragto wax caqabada keenayan ma jirto laakiin haddaadan rabin inaad aragto waxaad samayn intaad saa u wada doorato hal meel kasoo istaagto ama select all aad tiraahdo ayaad right click dhihi dabadeedna meelahan haddii aad xaggan ku aragto example aan dhahno aan dib usoo noqono xagga right click haddii aan dhaho meelahan waxay isu saari doonaa ignore all haddii aan ilaa dhowr doorto ignore all ima soo saari marka xaraf inaan dul istaago oo ignore
all aan dhaho ama waxaa jirta qaab kaleeto settingii looga soo hagaajiyo oo waxaan oo dhan kaa ignore garanaysa marka mid walba dul istaag haddii aad awood u leedahay ignore oo dhe waad aragtaa inuu rabo inuu ku saxo oo isku dayo inuu dhaho ma ereygan baad ula jeeday ma kanaad ula jeeday ignore all laba xaraf inaad isla doorto oo kuwan iyaguna haddii aad intaasoo kale saa u dooran karaysa ama uu ku ogol yahay saad samee marka warqadan aynu qornay for example wataa xaggan oo kale iminka masjidka oo kale emta weyne huda oo kale xagga h weyn ka dhig okay taariikhda iyo labadoodu meelaha ka wada bilaabmaan inta dib usoo noqoto space oo kale ya meelahaas oo kale iska ahaadaan wixii markaad saa u dhamayso waxaad u baahan tahay inaad daabacdo oo dee lasoo dejiyo okay haddii lasoo dejiyo aad rabto inaad lasoo dejiyo maxaad samayn file baad dhihi print baad dhihi haddii marka aad laptop hayso ama desktop aad hayso printer ku xiran printerkii oo kale meelahan uu kusoo saari waad dooran printerka yani kugu jira waxaan dhahaye laptopkaaga haddayna kugu jirin ood rabto inaad suuqa ka print garayso pdf aad ka dhigan marka koowaad oo warqadeena wataas inoo soo baxday warqadeena wataa taasay noqotay print baad dhihi for example pdf muxuu yahay pdf yani pdf waxaa la dhahaa oo filekaaga warqadaadii aan waxba laga bedbedelin karin dadka akhristayaasha aad saa kula wadaagi karayso marka book markaad qorto pdf aad ka dhigi saasaad internet ku geli ama dadka aad kula wadaagi ogeysiis oo kale ku qornay discord kaan dhigto ogeysiis save aan dhaho dabadeedna aan soo eego haye warqadii aan qoray ayaan rabaa inaan arko ogeysiis waa kan haye waxaan dhammaan la ogeysiinaya bulshada ku nool xaafadda koowaad ee magaalada jigjiga inay jirto muxaadaro ku saabsan dhaqanka suuban iyo dhaqanka jaarka waxaa si sharaf leh iyo la dhaqanka mise xaqa jaarka si sharaf leh laydinka codsanaya inaad kasoo qayb gashaan muxaadaradaas oo lagu qabanayo masjidka huda oo codsanaya inaad kasoo qayb gashaan muxaadaradaas marka qoraaladii inagii kusoo celcelinay aduu buuxida wixii aad xoogeeda hayso xagga ku qorayso culimada kasoo qayb galaysa muxaadarada ama qabanaysa sheekh shibili sheekh umal dhagdhag intaa waxaynu ku aragnay videogan qaabka aad u print garayn karto qoraal aad qortay ama warqad aad u qori karto sidaas lamid ah haddii aad iminka dee rabto inaad warqad qabto maxaan dhahaye xafiis ama shaqo codsasho ku socotaa haye magacaagii qor haye magacii xafiiska aad rabtay ka socota amaba anigoo ah baad xaggan ka bilaabi magacaaga hadaad warqad kaleeto qaab kale u qoraysid waka waa intanuun ku dhex ciyaar yani intanuun baadhbaadh fududahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu